bismillaahi araxmaani araxiim. kusoo dhowaada jaalka maalmaha. waxaan idinla wadaagaynaa qiso aada u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay rumaynta qadarta allah. qisadan ayaa waxay ku dhacday gabar macalimad ah oo iskuul wax ka dhigi jirtay. gabadhan ayaa waxay ka raagtay ama ay kadib dhacday xilligii guurka. waxay ahayd gabar aada u qurux badan, akhlaaqdeedana ay aada u wanaagsan tahay. maalin ayaa gabdhaha iskuulka la dhigo waxay ku yidhaahdeen, waxaa tahay gabar aada u dabeecad wanaagsan, allahna wuxuu ku siiyey qurux ee maxaad u guursan la-dahay. waxay tidhi waxaa jirta islaan, mar weliba waxay dhali jirtay gabdho, waxayse doonaysay inay wiil dhasho, balse alla subxaana wa tacaala wuxuu doonay inay mar weliba gabar dhasho. waxay dhashay 5 gabdhood. markii 6aad ayay uur qaaday. ninkeeda ayaa wuxuu ku yidhi, haddii aad markaan gabar dhasho waan ku furayaa. aad ayay u cabsanaysay, balse allah subxaana wa tacaala wuxuu doonay inay mar kale gabar dhasho. markii ay dhashay gabar ayaa ninkeedii aada u carooday, wuxuuna soo qaaday gabadhii, wuxuu dhigay masjid markaa u dhowaa xaafadooda si dadka ay u qaataan, balse qof waa ay qaadan weysay. dhowr maalmood markii subax weliba uu keenay masjidka ay qof qaadan weysay ayuu wuxuu u soo celi hooyadeed. hooyadii aad ayay ugu faraxday. muddo kadib hooyadii waxay qaaday uur kale. aad ayay u cabsanaysay inay gabar kala dhasho, balse allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyey wiil. aabbihii markii uu arkay inay wiil dhashay aad ayuu ugu farxay, balse markiiba waxaa dhimatay gabadhii ugu weyneyd gabdhihiisa. uur kale ayay qaaday, waxayna dhashay wiil kale. haddana waxaa ka dhimatay gabadhii labaad. mar weliba ay wiil dhasho waxaa ka dhimanaysay gabar, ilaa ay 5 wiil ka dhashay. 5tii gabdhoodna waa ay dhinteen. waxaa soo hartay gabadhii ugu yareed oo aabbihii geenaya masjidka si dadka u qaataan. markaase waxay ku tiri gabdhihii, ma taqaanan gabadha uu aabbaha doonayay inuu ka takhalluso? waxay tiri waa aniga. waxayna tiri sababta aan u guursan la-aan waxay tahay, waxaan hayaa aabbahay oo waayeel ah, mana haysto qof kale oo daryeeliso. wiilashii la dhashana waa ay ka kala tageen. marmar dhifa ayay u yimaadaan ayagoo soo booqanayo, dib dambana uguma soo laabtaan. balse waxay tiri aabbahay mar weliba uu iska oynayaa, wuxuuna ka qoomameynayaa wuxuu igu sameeyey. qisadan waxaan ka faa'iidaynaa inaad mar weliba ku raali noqoto waxa uu alla subxaana wa tacaala ku siiyey. maxaa yeele haddii aadan ku raali noqon waxa uu alla ku siiyey, waxay ka dhigan tahay adigoo ka hor imaanaya qadarta allah subxaana wa tacaala. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskraib dheh gamaylka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.